haddii nin dhalinyaro aad tahay, 30 aad ku jirto, 20 aad ku jirto, ilaa hadda aad aaminsan tahay fikradda ah dumarka in jikada loogu talagalay ama ninka ragga inuu jiko galo cunno samaysto, naftiisaba xitaa inuu u samaysto, in ay ceeb tahay haddii aad aaminsan tahay oo maanta nolosha heer aad ka taagan tahay in aad naftaada jikada u gashood cunno samaysato, inaad ka gaajooto aad ka doorbidayso, waxaad taagan tahay heer aan lagu caawin karin. Run baa wanaagsan. Adigoon baa is caawin kara, qof bini'aadana kuma caawin karo. Marka isku daya raggiina fikradda aaminsan in aad wax ka beddeshaan. Fikraddaas waa qalad, wax ka beddela. Kliibkii u dambeeyay soo duubay aabbayaasha kula hadlayay ama aan kaga hadlayay sida wiilasha yaryar loo barbaariyo, rag waxaan arkay commentiga ku rafanay. Marka ragga kale waxay nagaga wanaagsan yihiin. Marka wax la isu sheego ma gubtaan. qofku wixii uunan aqoon u lahayn ama uunan horay u fahansaneen ama uunan tuhunsaneen oo ku baraarugsanayn marka loo sheego maskaxdiisa kacda waxbuu ka bedelay. laakiin ragina commentiga ku rafanay rag waxaan arkay replay commentiga kaliya oo maraya ilaa 120 oo hablaha la murmay wana sidan hal isu dhaam ragga dhalinyarta anigu raggii hore waaweyn lama hadlo waana abuur baa ka horreeyay raggaas maskaxdooda waxaas way ku abuuran waxba laga bedeli karo. Anigu waxaan hadlayaa ragga dhalinyarta 30 ku jira 20 ku jira ee noloshooda hadda wax ka bedeli kara. Raggaas aan la hadlayaa marka waxa la iska bedelo fikradaha qallalan ee maskaxda ku jira hala shaandheeyo hala sifeeyo waxa la fiiriyo indhaha hala furo yacni hal meel oo focus kala saaran indhaha hala furo dhinacyo fara badan hala fiiriyo